maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta, hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha dalka. Waxaan baaq nabadeed iyo cafis 90 maalmood ah u fidinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo noqdaan wadada khaldan ee ay ku habaabeen, una soo laabtaan bulshada Soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhalinyaradaas, una abuurto mustaqbal sharaf leh oo ay kaga qayb qaataan dhismaha dalkooda. Sidaas darteed, waxaan hay-adaha amniga iyo garsoorka faraya in ay soo dhammaystiraan habraaca fulinta cafiskan. Sidoo kale, maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta, hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha dalka, loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Muddo sanad ah oo ka soo wareegtay xilligii goglahaas, waxaa la qabtay goglo wada hadal oo miro dhal ah, kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed markhaati ka tahay doorka hogaamineed ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya hormuudka ka ahayd. Isu soo dhowaanshaha, isu tanasulka iyo ku xallinta khilaafaadka hab nabadeed ayaa aasaas isaldhig u ahaa goglahaas iyo wada hadalladaas. Waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in goglahaasi ay weli furan yihiin, wada hadalkuna uu yahay jidka keliya ee lagu gaari karo xal waara iyo dowladnimo dhammaystiran. Walaalayaal, ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena siiyo nabad waarta, barwaaqo iyo horumar. Waxaan rajaynayaa in munaasabadan Ciidul Fitriga ay noqoto mid farxad, jacayl iyo rajo cusub u horseeda dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay Ciidul Mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Kullu caamin wa antum bikhair. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.